سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن. walba oo indhaha ka timaada ilin dhab ah oo run ah marba ma noqoto. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihiis way soo qaadeen ceelkeenu ku rideen si markaas uu u dhinto kadibna waxay u yimaadeen aabbahood iyagoo ooniya. ilaahay wuxuu yidhi wajaa'uu abaahum cishaa'an yabkuun. iyagoo ooniyo iska dhiga kuwo ka murugaysan ayay aabbahood u yimaadeen. waxayna u yimaadeen mataqaanaa xilli habeena u yimaadeen si markaasay u qariyaan ilinta beenta oo ka daadanaysa indhahooda. waxaa la yidhi nin la dhihi jiray imaamu shacbi ayaa wuxuu u yimaaday nin qaadi ah isagoo ninkii maxkamadda joogay la jooga baa waxaa soo gashay qof dumara. markaasoo qofkii dumarkeed ayaa si xun u ooday. markaas imaamku wuxuu yidhi wallah uma malaynayo qofkan sidaas u oonaya inay been sheegayso. markaasaa ninkii qaadiga wuxuu yidhi oo sabab maxaad ugu malaynayso yidhi sida u oonaysa fiiri. markaas qaadiga wuxuu soo xasuusiyey nabiyullaahi yuusuf walaalihiis inay ceelka ku tuureen kadib markii aabbahood u imaanayeen si xun u oonayeen. macnaheedu waa maxay? ilin walba ka timaada indhaha ka timaada mar walba macni ma noqoto ilin maxaan ku dhaha run ama dhaba. arrintaas inaan la socono waa arrin muhiim runtii. waa mahadsantihi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.